ان مدن فيقيو dalku waxa uu ku jira marxalad kala guura waqtiga madaxweynahana waa uu dhamaaday musharaxiinta kale midowga musharaxiinta mucaaradkana waxay sheegeen in madaxweyne farmaajo aysan u aqoonsanayn in uu yahay madaxweynaha Soomaaliya bal marka hore idinka kudladiina dhexdhexaadka ah maxaad ka aaminsantiin madaxweyne farmaajo maxaad u aqoonsantiin madaxweyne farmaajo waxaan u aqoonsanahay madaxweyne farmaajo in xilligiisii uu dhamaaday oo ku ekaa 7 February sharciyadii uu ku ahaa madaxweynahana ay ka dhacday sida daraadeed ma aqoonsanin inuu yahay madaxweyne sharciya oo hadda xil u hayo ummadda Soomaaliyeed waa gartay idinka waxaad ku dhawaaqdeen kudlad musharaxiin dhexdhexaad ah maadaama aad dhexdhexaad tihiin garabyada siyaasadda Soomaaliya isku haya haddii ay ahaan lahaayeen midowga musharaxiinta mucaaradka ama maamul goboleedyada ama dawladda dhexe ee waqtigeedu dhamaaday wax heshiis oo adigu baaqdeen ama aad isugu keenteen ma jiraan horta baan kelmadda dhexdhexaad macnaheedu markaan leenahay waxa weeyaan annaga lafteedu siyaasaddan ka midnahay bahda siyaasaddan ka midnahay waxaan ka midnahay musharaxiinta u tartamaya xilka u sareeya dalka marka dhexdhexaadnimadu waxa weeyaan oo kaliya qolada hadda xukunka ku haysata iyo kudlada kale ama se maxaa la yiraahdaa madasha kale ee musharaxiinta kale ku midoobeen labadooda midna kama tirsanin weeye dhexdhexaadnimadu laakiin macna kale oo aan intaas ahayn oo hadda leedahay ma jiraan labada dhinac oo aad loo yaqaan labada dhinac midna kama tirsanin kudla dhexe oo meel dhexe joogtaan nahay weeye macnaheedu oo dhexdhexaada aragtahan iyo fikir ahaanba